السلام عليكم خيارة الصوماليات مركز كاتشوكتان عن السلامي maanta waxaan tacsi u diraynaa dadkii daadku la tegay gobolka hiiraan magaalada beledweyne magaalooyin badan baan saan maqlayo anyway dadkaas dhibaataysan ilaahay dhibaatada ha ka saaro ilaahay dhibaatada ha ka saaro ilaahay dhibaatada ha ka saaro waa usoo ducaynaynaa wixii aan qaban karna waan qabanaynaa annaga ina naafac tiim haddaan nahay wixii aan qaban karno waan u qaban karno dadkaas waa u qabanaynaa waxaan dhihi lahaa ilaahay dadkaas dhibaatada ha ka qaado dadka waxaa maqlayaa yaxaas iyo balaayada biyihii dhulka yimaadeen yaxaasyo iyo bahalaa kasoo baxayaa laleeyahay subxaana allah subxaana allah subxaana allah ilaah naga qabto waxaas ilaahay dadkaasna ilaahayna sida ugu dhaqso badan ilaahay dhibaatada ha ka qaado baanu leenahay ummadda soomaaliyeed dee wixii aad samayn kartaan oo u samayn kartaan u sameeya awalba waa laysku yaqaanay soomaalidana waa isjecelnahay garow waan u jeeday maanta oo aad iyo aad laga diray waxyaalo looga baahan yahay cunto hadday noqoto biyaha hadday noqoto waxyaalahaas oo dhan oo laga diray garow waan u jeeday puntlandna waxaan leenahay shaqo fiican baad qabateen soomaalida oo kale oo dhanna waxaan rabnaa inay ku daydaan ayaguna dee dadka meeshaas soomaali markaan unbaa walaalo leeyahay markaan unbaa laysku baahan yahay walaalnimada lagu sheegayo hadda timid haddaa lagu arkayaa marka xumaantii iyo qashankii iyo wixii si aanu meel u dhigno waa inaan iscaawinaa waa inaan garab qabanaa waa inaan isku warhaynaa marka waxaan leeyahay dadkaas ilaahay dhibaatada ha ka qaado ilaahay dhibaatada ha ka qaado wixii ummad oo yacni caawitaan u yimaado caawitaan u diray na ilaahay khayrkooda iyagana ha siiyo muddada kale haddana maanta waxaa maqlayay taliyaha booliiska hargeysa asna wuu dhintay alla yaa raxmo asagana ilaahay jannada ka waraabiyo dadku ka dhintana samar iyo iimaan allaha ka siiyo ilaahay hadduu nin fiican ahaana ilaahay mid kaloo fiican ha ugu bedelo oo booskii u gala taasna waa gooni marka intaas un baan maanta rabay inaan ka hadlo waqti badan maaha halays caawiyo weliba dhalinyaradan islaynaysa oo idinka kaalaya oo dalkii dhul baa leedihiin dhulkiini yacni ka warqaba oo yacni la socda waxa dhacaya intaa meelahaas qori iyo balaayo la taagan tihiin dhulkiini taga soo arka markaasaad ogaanaysaa inaad qof jira tahay markaad dhul iyo diin iyo dad leedahay marka puntland reer garowe waxaan leenahay iyagana thank you so much aad ba u mahadsantihiin waxyaalahaad noo u samaysaan dadkaas dhibaataysan ummadda kalena inay ku daydaan ilaahay hadigo oo meeshaas dadkaas dhibaatada lagala gargaaro dhibaatada ilaahay ka qaado intaas iyo next week